صاحب أنا وادنتي ولا لا يودن ويقول له ما أركيا وران وادنتي محا ويسين بس كلا يدعي إنه هذا بقبر يوحب يسوعي واقر كدب صاحب ولا يحسينيو ولا يقاري قبر قال يجيس أنت أردن عادي ستوسا تتكدن يجوا وحيلين وتوا مقليا واقر أنا عجلت بمشاعر دارن لكن تجاهي وحول بوي مقليا واقر بلك على لا يدار يعني لكن واقر قال يجي مدة لا يقول رجي ولا يجي صاحب وما لقي بقى يمد والله بالله عادي من ربك بالي صاحب سبحان ايش ugu horeeyay qabriga marka tagtay lagu weydiinaya rabbigaaga sheeg bal oranaya kan yar adduunyada ka yimido man rabbuk bal oranaya saaxiib ma garad saaxiib rabbi allah baa yiri saaxiib waa ka jawaabay ma sha Allah diintaada sheeg bal yiri diintayda waa islaam man diinu nabiga Muhammad waa wada sheegay su'aasha qabriga saddexdiiba markaan ka jawaabay waxa laga yiri waa badbaaday jaranjartii koobaad ma arkaysaa ma sha Allah waxaa la ii shiday camalkaygii oo dhan markaas waxaa la yiri saasaad ahayd nin wanaagsan ba ahayd dadka ma aad dhibi jirin hadda qabrigii waa ka jawaabtay wixii oo dhan waa la ii tikariyay saaxiib عادي اسكو دعوت laakiin baa laga yiri cadaabtaa galaysaa niyo ehlo cadaab baa tahay cadaabtaana galaysaa waxa oo dhanna waxba kama jiraan aad ka soo gudubtay waayo waxa rukunku waa salaada ادي salaadana ma tukan jirin saaxiib taariku salaad baa ahayd marna waa tukanaysay marna ma tukanin jimcaad tukanaysay saa waana run markaan 18 jirka ma tukanin ba marmar jimcaada la iska tukanay baadan doon xaafadda inta oo soo tukanay kubadda iska tagayba واقر ابو عذاب القبر baa tahay hal mar ciishaan yiri marka qofku markuu dhinto adduunyada lagu cushiyo moogta qofku ma soo noqonayo qofku markuu dhinto ma soo noqdo moogta ما شاء الله laakiin aanu ma dhimanay waxan baa la tusayaa تفهم waxa ayri hal mar hal ay ciidiyo waan soo cibaadeysanaya kadib saan jannada u galo may waad ogtay in la iscelin lagu mana celinaya la yeer ma garad سبحان الله kadib saaxiib waan ku celinayna hal chance ku siinayna orod soo cibaadeysa la yeeri alxamdulillah markii la soo celiyaan koomay ka soo kacay marka bil 18 cisho kadib markii aan la soo celiyay adduunyada la igu cishaan yani kala garashada inay igu soo noqoto سبحان الله يا عجيب ما فهمتي ادي kadib saaxiib waxaan soo kacay ehelkay iyo bil 18 cisho dul jooga qaar iska murugaysan yihiin adeero adeerkay saaxiib oo markasta salaada tukayga oran jiray oo lugayga fadhiyo quraaniga akhriyay soo kacay waxaan siriniyo maalintaas aan anu aqliyeystay bis maalinta aqliga ma horeyn ba saaxiib marka saaxiib isma faaninay laakiin wala soo aylo cadaab baan saaxiib qofka dad kan waa aylo cadaab moot حديث دون واي عبد الصلاة ده هجاكته ترك الصلاة فقد كفر صاحب نو أصلا الفرق بين المسلم والكافر الصلاة لكن حديث وحي هي عبده كما قال عليه الصلاة والسلام حد الصلاة ده هجاكته عمل كاجا أنتي سكلو هجاجا حد الصلاة ده حماتنا عمل كاجا أنتي سكلو حمانا هذه أنا محريكو أركت هذا اللي يقولوا أنا أكسنا تبع حساس بس حد روح صحابك من جيران ولا صلاة متكجرين وجدا marka saaxiib ajiib waay second chance lagu siiyay ilaa uu ku jabay anyway saaxiib maalintii aan koomaa ka soo kacay kadib salaadii aan bilaabay wardoonta dusheeda ku tukanayniyo ma sha Allah saaxiib dadka qaar way iska fududeysanayaan salaadaha mugta warfi hadaa meel kale ka tuko weysaa lagu yiri farta ka tuko beerma وصح الصبرات معناها صلاة دتك قارو اسكف ايغو عافيماد قبا كو بدن متكنايا لكن صلاة هدا تكويس او ساس ا نقطه حتى فرتا كتكني warbaabur hada saaranta bulciyo madheys gaariga laga diga hadhow tukana wiisaadayba ku dhowranta adoo fadhi sida tukana ilaa gaariga halkaas u socda door ma faatay la jiro wadi come on bro macna